waddan uu ku duwaya ma aqaan wiilkaygi أنا نقول يجاري يقصبها أنا مقان مهرد نمو أنا مارك قفك ده لمتنا وادوغا لهاد قفنا يا سنة لا عرفتي قفنا نور أنا كسبنا أنا مقان دولنا مقال أولادنا ملكوشك madaxweyne waalidiintan waxa ay ka sugayaan jawaab nolol iyo geeri mid ku sheeg ubadkooda ka maqan magacyadooda haddii aan ku xasuusiyo waxaa ka mid ah أحمد سعيد أحمد علي محمد محمود على عرفاية عبد الكريم نوح أحمد يوسف إسماعيل حمزة عبد عقويني محمد علي حسن علي أحمد سبير أولحي تبنجرأة عمر هلولة أحمد إبراهيم جمعالي صلاة علي حسين عبد القادر محمود يوسف محار روب لميني عبد الفتاح مهد محمد إيا فيصل عبد القادر محمد أو المادير صديق مهد ألونجيستي محمد عبد الناصر نور iyo xasan siciid nuur oo ilmaadeer ah xasan cabdullaahi maxamed gorod liibaan guulood sheekh ibraahim diyaar xasan nuur xuseen haaruun cabdulqaadir maxamed aadan geyre maxamed salaad cabdi mustaf axmed wardheere asad iimaan maaddey faysal maxamuud maxamed yaasiin maxamed cabdi xalane cabdi cilmi cabdicasiis cismaan yuusuf nuuraddiin cabdi maxamed cabdifataax siciid sheekh jaamac salaad cali xuseen حلنا عبد علمي عقال عبد فرحان عبد الله عبد الرزاق عبد الرحمن نور يحيى عبد الرحمن نور أفرح محمد خليف علي حاشي عبد الرحمن بلالة آدن بشير أحمد محمود عبد القادر قاسم ظاهر حمد خليف الشيخ حسين أحمد نور علي قرحن شرماكي حسن علي ليبان علي شروع مهد علي شروع قلط عبد القادر شيخ محمود أحمد شيخ محمد شرماكي عبد السوفي سيد علي سعيد عثمان فايد مرحرسي حسن شيخ عبد ياري عبد ولي صلاة علبي محمد دلع عبدي بلاد محمود شيخ جامع عبد الناصر محمود شيخ جامع ثابت علي عبد ترح عبد القادر إبراهيم عبدي سادام علس علي عبد الرحمن حسن كلمية أحمد نور محمود عبد الله أنس محمد بشير عبدي حير علي حي ومكة بانطو ضمان علميه اللغوة السوق المليون وحي النول والدين تلغو صمريو وحي اللي تنا إلهي ونحريصو ساسان إسلامك كعصانينا ماشي لغا ولا مركان تبنا ولا يسودلي ودرك الله يقال ولا يسودلي لا ما قايمين هل كاسو جرا لما دين waxa iigu xigtay in la yiraan waa ilmi waa kala fakayaan waxa hay malan qof la xiriiraysa mal qofna qiimeynaysa mal waxaan ka codsanaa dadkii geeyo waa is yaqaanin inay ilma wiilkayga ii keenaan wiilkayga ii keenaan haddii ilaahay ka cabsanaan ii keen dadkii wada waa yaqaanin waa is yaqaanin meeshii laga wada layga maqay waa laygu dilay ma garatay dadkii wada waa yaqaan hal loo keeno waxa codsanayna aad leerina loo keeno ilmaayagii aniga oday Soomaaliyeed baan hay 10 cunug baa iga maqan ilaa shaqaasatan 2 cunug baa iga maqan ilmaayaga waxa loo sheegay in qadar loo qaadayo ay shaqaysanayaan haddii ilaahay ku roon yahay mushaar helayaan nolol helayaan aniguna aan wax ka helayo waxa igu horeysay ugu dambeysay hal sano ka hor waxaan ku baaqayaa codsi hore u nooga dhamaaday waxaan la hadlaynaa adduun weynaha waxaan la hadlaynaa waxgaradka Soomaaliyeed waxaan la hadlaynaa odayaasha waxaan la hadlaynaa haddii ilaahay ku roon yahay saraakiisha wixii wax ku fadhiya oo wax garanaya oo damiir leh oo Soomaali leh waxaan ka codsanaynaa inay na samriyaan wax noo sheegaan mas'uuliyiintii dawladdu waan ixtiraami weyday waan la hadli weyday waan aqbali weyday waan sharfi weyday waan karaamo ilmaheeni wixii nool in la keeno wixii dhintay waxa nool oo hadda dhibaatada ku haysato ee la tareeye oo baahidu ku dilayso oo buuraha lagu falahayo oo maxaa tiraahdaa markay ku soo dumaan ku dhimanaya oo suuxahaya oo dhar kala hayn oo kabaha lahayn oo dhintay hanna loo keeno ilmaheeni hanna loo keeno inaan hooyo Soomaaliyeed inaan galmudug ana ka mid ahay madaxweynaha waxa ka codsanayna walaalayaal loo gudmay sheegaya in wiiliga maqan yahay meel uu jacayl xiriirka warwahayo midahal sano iyo bara shaadkiis iyo ruuxiisna ma hayo keenayna walaalayaal dad waxaan nahay wiilashooda la qaatay oo askar loo qortay oo ilmo yar saqiira oo 14 jira oo la ka qaatay oo liibiga waxa la tiriyaa lagu tuuray oo la gatay
yaa oo madaxweynuhu qaatay oo yidhi sababaan ula baxay nimankaasi waa baabeen baa la yidhi waa dhinteen baa la yidhi waxba kama noolaa la yidhi waxaan doonaynaa inaan ka soo saarno كومنتي wax ku soo qorayaan waa akhrisan anaga koomentiyada dad baa wax ku soo qorayaan waa mucaaradka soo diray anaga mucaaradna nama soo diray mucaaradka shal dawladda haysta wajiro nooma soo gelin wajiro nooma gelin shal dawladda haysta marka ninkii walba dawlad markuu ka kaco uu mucaarad noqday wadada soo istaaga anaga mucaaradna ma nihin dawladna ma nihin muxaafad baan nahay qofna ma taageersanin marka waxaan ii sheegaynaa anaga ilmaheena ay kaxaysteen nimanka xunka ay wada dhexda wada dhuuqsantahay oo eeyaha ah ilmaheena ay kaxaysteen aniga hadda walaalkay ila dhashay waxaan xaqiijinayaa kitaab jaamaca gacanta ku maray wallahi oo billahi oo tallahi walaalkay inuu dad hoostiisa ku jira soo hoostiisa walaalkay ku jira anaa og inuu dad hoostiisa ku jira waan la soconaa nimanka samaacadda intay u wada furaan bay eeg istaagaan nimanka askarta intay eeg istaagaan bay waxay yiraahdaan hooyaduna waxa ku tiraaheen waa fiicanna hooyaduna soo qaadaya una agtaagan ilmeena lacag in loo haysto oo dawladda lacagta bixin weyday waa ognahay waan la soconaa ilmihii qadar lagu soo tababaray way yimaadeen kuwii lagu soo tababaray Turkiga way yimaadeen anaga kulli way yimaadeen anaga kuwan ma qala rabtiin waa yaabanahay kuwan wadanta kala haydeen kulli waa gaarteen ilmaheena noo soo celiyo inta harta noo soo celiyo ilmaheena wadalaar yaa ku dhacday ciyaalka isbitaalka yaala anaga nala soo xiriireen anaga day afka carabigana waa naqaanaa waana la hadalna nimanka dhaqaatiirta waan la hadal waan la soconaa elitareeyaanka meesha igu fadhiyo kuwa la hadalna maalin walba way noo sheegaan sirtiina dhanna waa ognahay waxa ka dawacsadeen waa ognahay fahad yaasin gadaal buu ku jiraa wuxuu iska dhigaa nin qaranka u shaqeeyo qaran oo shaqeeyo dad buu u shaqeeyaa dad shisheeye u shaqeeyaa dad shisheeye buu u shaqeeyaa annagu shisheeye annaga wadankeena maanta Soomaaliya u dhashay weligay kaba bixin intaasaan taagnaa daarinta maanta askari xun oo qori wata maanta iga soo ceyriyay oo yirnaa kama hadli kartid halkan filooyinka dhanba u wada xirantaa bir weyn meeshaan ugu soo istaajiyay gadaal bay ugu jiraan mukeyf oo wada shidan mukeyfka ku gubta ilaahay waxaan ka bariyay hooyaday macaan hamiin ma seexato maalin ma seexato maalinta wiilkeeda la qaaday macaan walaalkay waa wiilkeena dartiisa walaalkay u dhintay ilaahay waxaan ka bariyay oo ilaahay ka bariyay ilaahay waxaan ka bariyay hooyaday inta ka goyseen inta hooyaday ka goyseen ilaahay waxaan ka bariyay farmaajo saddex qof ay sheegayaan farmaajo iyo fahad yaasiin iyo ninka la yiraahdo hadda mucaaradku ku jira odaga xunka oo maxaa la dhahaa qayro dhulka Allah kula gooyo araga Khadija Ahmed thought her only son was going to work as a guard as part of Qatar's 2022 World Cup preparations. But at her home in Somalia's capital, Mogadishu, she now fears the job was a trick and that the 16-year-old may have been forcibly recruited to fight for Eritrea, one of the world's most secretive nations. The boy is missing, and I don't know if he's dead or alive. Their father, a senior military officer, died for his country. Other families have similar stories, and the apparently secret recruitment of youths for Eritrea is stirring anger in Somalia. Last week, protests were sparked after the former deputy director of Somalia's National Intelligence Security Agency, Abdisalam Gulid, said Somalis had been sent by Eritrea to fight in Ethiopia's northern Tigray region. I don't have an accurate number, I don't have any evidence, but I do have a reliable source who told me the number of Somali soldiers, the casualties, are about 370, and other 100 numbers are died in a battlefield. He provided a list of names which Reuters was unable to independently verify that he said was given to him by an Ethiopian official. Mohammed Dahir believes his two sons may have been killed in Tigray, where Ethiopia's government has been fighting rebellious regional forces. He says he can't sleep, worrying about his children and not knowing if they are dead or alive. A regional security analyst said around 1,000 Somalis had been recruited and taken to Eritrea, with some having now returned, some unreachable, and others still in Eritrea, a country often referred to as the North Korea of Africa. Somalia's government did not respond to requests for comment on its apparent role in the recruitment, though spokesman Mohammed Ibrahim said no Somalis had been sent to Ethiopia. Eritrean Information Minister Yemane Meskel said the claims were ludicrous and that there is massive disinformation floating around.
waxaan codsanaynaa oo maanta cod dheer ku codsanaynaa oon ka codsanaynaa dawladda aan maanta ilaahay baan hoos joognaa aan hoos joogno oo nin walba oo maanta na dhagaysanaya oo islaam ah oo dawladdaas wax ka gala awraaddaas maqan oo geeri iyo nolol midna aan ahayn oo 2 sano ay cagacagaynayaan oo noloshooda aan ahayn oo geeridooda aan haynin inna la ka shaafiyo oo dawladda dhagaha noo furto oo dhagaha noo furto oo noo dhaga nuglaato hooyaan nahay ragga waxay rabaanahay ku sameeyeen laakiin hooyooyinka cabanaya waa in dawladdu u soo jeesataa oo dawladdu ilgooniya ku fiirisaa oo hooyo Soomaali nin walba hooyaa dhashay ilmihiina fiiriya maanta inta madax ah nin ilmihiisu dalka joogaan ma jiro nin walba meel buu ku raaxaysanaya anigu xabaddan ku soo dhex koriye intaas oo maanta aabe iyo hooyo hadlahaya nin maalin ilmihiisu wadanka ka baxeen ma jiro xabadii 30 sano ahayd baa nin walba ku dhashay ilmahaad maanta ka haysateena waa 20 jir waa dareemin kartaa 20 jir waxa lagu soo koriyay mid agoonaha jira midaan maxay hayta wax walba alaha ku wada jira dhibaato xun baan haysatay dhibaatada waa in laga jawaabaa madaxweyne waxaad u dhaaratay dalka iyo dadkaad u dhaaratay annaga kamid ah hooyo Soomaaliyeed oo ku hoos taagan calankaaga maanta oo awood lahayn albaabka aan garaacnana wax naga furaya male albaabka aan garaacno oo dawladda wax naga furaya male nin kastana waa naga faa'iideyste nin walbaaba hadal aanan qaadan karin buu noo keenaa dawladda hadalka ka soo yeerana kumaanaan qancin wasiiradeedii weeye waxa hadlahayaa oo annaga noo dhaartay weeye ninka maanta ka meermeeraya geeridoodii noloshooda ma ku qancin mana ku qanci doono laakiin madaxweyne waxaan ka codsanaynaa ama madaxweyne am nin alla ninkii xilka haya maanta dawladda farmaajo nin alla ninkii xilka haya nin kasta ha u dhasho ninkii maanta xilka haya inuu ka dhiidhiyo oo nala hadlo oo wax na dhaho oo maanta kaliya uu jawaab horta oo jawaab nala siiyo wargeeri waa naqaanaa kuwii naga horeeyay dhidhinta aabayaashoodan soo wada duugnay laakiin maanta dhibaatada jirta geeriya nolol maalinba in YouTube hadlo oo nin ilmihiisa biil ku raadsanayo anigu biil igu raadsado oo mid kale ma maxay tahay oo xildhibaanada dawladda kamida laftigooda ay nin mas'uul ah oo ku hadlo yiraahdo 3,000 oo nin baa dhimatay maya madaxweyne taas maya assalaamu calaykum waalidiintani maanta dibadbaxa ka dhigay taalada daljirka daasoon ee degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho ayaa waxay cabasho ka ahaayeen dawladda dhexe ee Soomaaliya maadaama ay sheegeen caruurta ay dhaleen in dawladda federaalka ay u qaaday wadankaasi Eritrea si ay u soo askareyso isla markaana ay dib ugu soo celiso wadanka Soomaaliya oo markii hore caruurtani laga qaaday hase yeeshee waxa ay sheegeen in caruurtooda ilaa ay hadda nolol iyo geeri midna aysan ku haynin isla markaana waxa ay ka dalbadeen dawladda dhexe ee Soomaaliya inay cadeyso mowqifkeeda la xiriira caruurtaasi iyo xaaladooda sida ay tahay inkastoo dibadbaxayaashu aysan dhameysanin dibadbaxooda ayaa goobta waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya oo kala eriyay waalidiintii dibadbaxaasi halkaasi ka dhigayay qaar ka mid ah dadkii dibadbaxayay ayaa la hadlay warbaahinta Daljir waxayna ka warbixinayaan dibadbaxooda waxa uu ku saabsanaa aniga cunug baa iga maqan ilaa 10 kun oo cunug baa iga maqan oo Soomaaliyeed baan hayo dhibkaasi dhibahayo wuxuu ku dambeeyay annaka waxaan ilmihiina qadar baa loo qaadahayaa waxaan yiri qolo meeshii laga qorahayaa la ka yiri qadar baa loo qaadahayaa qadar in loo qaado raalli baan ka ahayn ilaa soo aliftiriyo oo godda waxa in loo qaado maana rabin annaka oo Soomaaliya joogin lacag aad u diri karin aad ka soo qaadi karin kuwa dhaawaca sariir saaran oo dadkooda loo soo sheegaya kuwa jajaban kuwa xabad ku dhacday kuwa dhintay inta wax hadii ilaahay ku reen loo tagi karay wax warreega keeni kara midna ma anu cidka la hadlay maayo dawladda aanu in badan cabasho u jeedinay baaq baan u jeedinay wax walba u jeedinay hadda digniin baan jeedinayna madaxweynaha la hadlaya ma dhacayso ilaa inta caruurteeni god bahal ku rida aad madaxtooyo ku raaxaysto wallahi bay sadacay billahi taala caruurteeni baan ka rabnaa inaad naga hadashaan ka rabnaa haddii nool yihiin aad noo kantaa ka rabnaa hadday dhinteen inaad naga hadashaan ka rabnaa wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh annaka hadda maanta ila taray meel baawur lagaga raacay inaan raadino inaan meesha wiilashana lagu dilo nala ku dilo inaan habaawno inaan iska soconno inaan qaara waashay islaamiyo geed ku xiran qaara sonkor ku dhacday qaara altrabarsiyon